kani waa aniga muuqaalkan waxaan iska dhigi doonaa qof caan ah waxaanan kaga yaabin doonaa dadka laakiin sideen iskaga dhiginaa waxaynu adeegsan doonaa magacooda sawirkooda iyo codkoogaba haddii aad fiidiyowgan daawanaysid oo aan kaaga waalay oo aan iskaga dhigay dadka caanka aad baan uga xumahay qofka ugu horeeyaan iska dhigna waxa weeye waa Sawda Qaalib sababtaan iskaga dhigayna waxa weeye waa in taageerayaasheedu ay iga sheekeeyaan sheekooyin sir ah oo noloshooda ku saabsan maadaama ay jiraan dad badan oo leh sheekooyin sir ah oo aan awoodin xitaa inay familigooda uga sheekeeyaan maanta sheekooyin badan baa laga sheekeyn doonaa marka ugu horeysa waxaan sameeyaa Instagram cusub oo fake ah oo magaceedu ku qoran yahay Sawda Qaalib sidoo kale profile-ka waxaan saaranayaa sawirkeeda oo kale sidoo kale Instagram-ka bio-giisa baxalkiisa hoose waxaanu ku qori doonaa akoonka waxaan ugu talagalay kaliya taageerayaashayda inta kadibna waxaan baari doonaa taageeraha ugu weyn anigoo ka dhex baari doona followerskeeda yani waxaan target ka dhigan doonaa sawiraanta ay soo dhigto qofka ugu badan ee like saara comment ka bixiya mar walba la socda xaaladeeda qofkaas ayaan raadin doonaa 24 hours later ugu dambeyntii waan soo helay hadaba gabadhan aynu kaga waali doonaa inagoo iskaga dhigi doonaa Sawda Qaalib markii ugu horeysay waxaan u qoray assalaamu calaykum waa walaasha Sawda Qaalib in yar kadib waxay soo tiri wa calaykum assalaam macquul maaha hadda ma waxa ay la hadlaysaa Sawda waan aamin ilaahay runtii inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun isla markiiba gabadhan wayna aamintay laakiin se talo way waxay ka mid tahay dadka yar ee duwa ku haray hadda kadibna waxaan u qoray haa walaal waa iyadii waxaan sameynayay muuqaal waxaan doonayay inaan ogaado inaad leedahay sheeko ama qiso sir ah oo aad jeclaan lahayd inaan dadka la wadaago haddii aad hayso waad ii sheegi kartaa walaalo eeg marka hore waan ugu yara faraxsan ma garanaysaa si aynan nooga sheekayn isla markiiba waxaan abaaray mawduuca aan ula hadlay isla markiiba waxay igu soo jawaabtay waan ka xumahay walaal kuma sheegi karo waan ka xumahayaa joog aniga garanay sidaad ku sheegaysid sir yar baan adeegsanaa saaxiibeel maadaama qofkan aanu la hadlayno ay tahay gabadh waxaanu ku soo xirigelin doonaa lacag maadaama dumarka iyo lacagta ay ka dhaxaysa kaliya ta aragtay inta kadibna waxaan u qoray haddii sheekadaadu ay qanciso waxaad heli doontaa abaalmarin lacageed bal waynu eegi doonaa waxay tiraahdo isla markiiba way aragtay weynay noo soo jawaabtay waxayna noo soo qortay wallaahi lacagtuna waa imisa balaay maxaan idiin sheegay xaliimooyinka iyo lacagta aragti baa ka dhaxaysa hal mar buu jawigeedii isbedelay haddaan kaaga waali waayo anaa waalan baan kuuri kadibna waxaan u qoray lacagta aad ku iidaysid oo dhan anaa qaba ha ka warwarin walaal kadibna waxay noo soo qortay haye sheekada ma qoraal baan kugu soo qoraa mise waad soo wici maya hadday wicitaan noqoto waynu fashilmaynaa taasaan uga hortago waxaan u qoray may walaal waxba ha isdhimin qoraal ii soo qor haddii ay sheekadaas noo soo qorto waxaa iska cad in ay 100% na aamintay inaan Sawda Qaalib nahay waynu iska sugaynaa waxaynu sugi doonaa meelaha 5 minutes kulli waxa laga yaabaa inay noo soo baarayso sheekadeeda ugu cajiibsan ee sirta ah ee ay leedahay haddii kale waxa laga yaabaa inay naga caqli badiso oo sheekooyin kale oo khiyaaliya ay meelahaas nooga soo dhageysato bal aynu iska sugno horta waxba inaan degdegin 6 hours later sheekadan bay soo qortay saaxiibaya dheer laakiin haddaba si qiiro leh aynu u dhageysano maadaama sirteedii ay muddo qarinaysay ayna la wadaagtay waxayna tidhi markii aan 17 jir ahaa waxaan jeclaaday wiil aan isku dugsi ahayn qofna ma ogeyn xitaa saaxiibadayda igu dhow yaa maxaad ula wadaagi weyday markaa dadka jacaylku wuxuu ku macaan yahay marka lagu ogi jaarkiina xaafadiina cid walbaaba marka ay ogtahay balse haddaad qarsatid wuu ku dhex dhimanaya waxay tidhi waxaan ka baqayay hadalka dadka iyo waxay odhan doonaan habeen kasta waxaan ku wada hadli jirnay fariimo maasha allah mararka qaar waxaan ku qosli jirnay waxyaabo yaryar mararka qaarna waxaan ka hadli jirnay mustaqbalka sida maalinta aan shaqo yeelan doono sida nolosheenu noqon doonto laakiin maalin ayaa wax walbaaba isbedelay waayahay habeenkii ugu dambeeyay ee aan la hadlayay wuxuu igu yidhi haddii maalin waxay u dhacaan ogow inaad tahay qofka keliya ee uu qalbigaygu si dhabaha u jeclaaday markaas waan qoslay waxaan u malaynayay inuu kaftamayo laakiin subaxdii xigtay waxaan maqlay inuu galay shil baabuur oo dhintay dadku waxay u malaynayeen inuu ahaa wiil caadi ah oo dugsiga ka mid ahaa qofna ma ogeyn waxa naga dhexeeya xitaa qoyskaygu ma ogeyn inaan is jeclay way mararka qaar waxaan tagaa qabrigiisa anigoon cidna u sheegin waanan u soo duceeyaa kadibna waan iskaga tagaa maya sheekadan horaan u maqlay TikTok iyo meelahaas baan ka dhageystaan filaya qiiradan iyo calaacalkan waan jilay oo sheekadan ku macaaneenayay balse waa been waxaan oo dhani dumar lagama sal gaadho ayaa la odhan jiray laakiin annagaa ka daran waxaan u qori doonaa fadlan sheekadada aad baan uga helay maadaama ay tahay sheeko qiiro leh in yar oo aan badnayn cod ii soo duub adigoo ooyiya si aan hadhow markaan sheekada soo gudbinayo ay xamaasad u yeelato waynu ka yara xaraabadaysanaynaa bal aan eegno waxayna tidhaahdo miyay soo ooyi doontaa mise way soo qosli doontaa
6 hours later. ala cod bay soo duub bal aynu dhegaysano abaayo maxaa u jeclaaday maxaa u jeclaaday naga raali noqo walaal casfiinay aad baan uga xumahay wallah qofka labaad ayaan iska dhigaynaa waa dayaxdal nuurshe waxaana kaga waali doonaa taageerayaashiisa waxaan soo helay gabadhan saaxiibayaal oo aad u taageerta dayaxdal nuurshe markii ugu horreysay waxaan u qoray saaxiibayaal waxaan rajaynayaa inaad fiican tahay kadibna isla markiiba waxay ii soo qortay alxamdulilah waa qof ma anaa kuu sheegi doona qofkaan hay ayaa doonaysa inaad ogaatid soo maha isla markiiba waxaan u qoray waa fanaankii weynaa ee dayaxdal nuurshe kadibna isla markiiba waxay ii soo qortay ha igu ciyaarin kuguma ciyaarayo akoontigan waxaan ugu talagalay inaan kala sheekaysto faniskayga isla markiiba waxay gashay instagramkii fayga ahaa ee aan kala hadlayay kadibna instagramka baayigiisii hoose ayay soo akhrisatay laakiinse waxaasoo dhan bay aamin isla markiiba waxay noo soo qortay codkaaga soo duub haddaad run sheegayso malaha waynu fashilanay imaka miyaana la ogaaday in aynaan ahayn dayax maya ma fashilmi doonno saaxiibayaal waxaynu samaynaynaa cod AI ah oo la mid ah codka dayaxdal nuurshe wadiyaabantiin miyaa imaka ayaynu samayn doonaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa anigoo dayaxdal nuurshe ah dhegaysta wallahi waa codkii dayaxdal nuurshe oo sax ah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا قضي أحد المشاعة imaka ayaynu u diri doonaa bal aynu eegno in ayna aaminto iyo in kale kale wayna aaminaysaa oo waa qasab sababtoo ah codkan qofna kama shakiyayo wallahi wayna aamintay waxay soo qortay mataqaana I am so happy wallahi dayax dalka nuurkiisa aad baan ugu faraxsanahay wallahi aad baynu uga waalnay gabadha waynu kaga sii waalno waxaanu usii qornay mid baan ula hadlayay maanta taageerayaashayda maxaad iga codsan lahayd talow maxay iga codsan doontaa ay ii soo qortay inaad ii samayso hees mawaahib leedhaa horta weli dayax muu qaadan miyaa hees mawaahib leedhaa iisoo sheegay saaxiibeer inuu qaaday iyo in kale kadibna waxaan ku weyy okay hees yar hadda ma kuu qaadaa gabadha madax xanuun baynu ku ridaynaa kadibna waxay ii soo qortay haa aad baan ugu farxi lahaa runtii haddaba imika waxaynu u qaadi doonaa hees yaroo naqan oo ay aad uga heli doonto horta jooga bal dhuuntaan yara sifeeye codkaygu haddaba mucjis ayuu noqon doonaa ubaxabaxaye ogbaadeye intahaad u runto iimaanka deeqdee fanaan waa noqon karaa codkaygu macaananiyow anaa iska yaabayba dhegeysta saaxiibayaal heesta iminkaan idiin qaaday waxaan ku bedeli doonaa codka dayaxdal nuurshe ila tijaabiya waan u diray isla markii waxay ii soo qortay waad cod macaan tahay laakiin heesahaagu maxay koobiga ugu badan yihiin fadlan hees koobi ah ha ii soo qaadin aniga no gabadhii dhannayd ee aynu heesaha u qaadaynin abaalkeedii ma sidaasu noqday imika sidaa waxaad uga mid noqotay dadka aan blogga ka saari doono instagramkayga amta imika waxaa toos ugu biirtay team blog waayo aad codkayga wax uga sheegtaa heesahaygu koobi ha iska ahaadaan laakiinse miyaad ugu ixtiraami weyday xitaa heestaa yar aan kuu qaaday qofka saddexaad ee aynu iska dhigaynaa waa kinka CK waxaanaan kaga waali doonaa taageerayaashiisa sidaad aragtaan waxaan samaystay instagram fayga oo magaciisu ku qoran yahay sidoo kalena sawirkiisuna profileka saaran yahay iga raali noqo CK haddii aad aragto muuqaalkan waa iska kaftan imika YouTube ha ii soo fadhiisan dagaalna diyaar uma yihi sidoo kalena feer diyaar uma yihi mid ka mid ah taageerayaashiisa ayaan soo helay waxaan u qoray mataqaanaa Cumar Karish CK Cumar Karish baa la dhahdaa haddii aydan garanayn imika iska barta ninkan haddii uu taageero sax ah u yahay CK uu garan doonaa isla markaba magaca iyo kadib wuxuu noo soo qoray haa CK miyaad jeedaa ninka big fan baan u ahay ana waxaan u qoray haddaan ku dhahdo karon isaga ayaa kula hadlaya kadibna wuxuu yidhi waxaan suurtagal ahayn waxaan instagramkiisa u diray fariimo ka badan 50 message CK nin xun baa tahay ninka maxaad fariimihiisa u eegi weydaa ambaad u furi weydiba kadibna waxaan ku yidhi haddaan waqti u helay taageerayaashayda hadda waxaan doonayaa in aan mid ula hadlo maxaad iga codsanaysaa kadibna wuxuu yidhi xamar baan joogaa inaan is aragno ayaan doonayaa CK waa kii maalin dhawey tegay xamar wiilkanna wuxuu doonayaa inuu la kulmo balak jacaylkaas qof sidaasoo dhan ii jecel aniguna maxaan u waayay talow ana waxaan u qoray habeenka iidda igu kaalay ilit hotel kadibna wuxuu yidhi intaan habeenkaa la gaadhin lacag xaqul ciid baan kaa rabaa oday war wuxuu yidhi maallaa mu iska sugu habeenka hadda ayaan CK ku qaraaci doonaa hallow CK mid ka mid a taageerayaashaada rabaa xaqul ciid yaroo aan badnaynba ma aha CK wuxuu yidhi anigaygii baa xitaa dhar la'aana jooga CK bay igu soo celiyeen hallow CK war nin mad waalan tahay war aniga ii soo dir lacagtan iyo ninkaana kaaga dhowey waa ku siiyey mad waalan tahay